بريلة دقيستها وحو وين عن هذا وحنا إني تدعك أي مقايين لو قبضوا أو كسر جدان حبة إثنين وكذا وكسر جدان مركز أنا والله أدبان أروح ماني Soomaali saa u nahay aad baan uga xumaanay midaasna waa mid nagu cusub wadamaha kale way ka dhacdaa oo waan aragnay balse dalkani Kenya hadii loo qaasaan Nairobi horta aad nagu cusub tahay marka asxaabta hadal badan rahmatullahi wa barakatuh wacan asxaabtayda sharafta leh aad u mahadsantihiin waa idin salaamay mar labaati mar saddexaad mar afraad soo dhawaada mudan kala maqneen waxa maanta halkan soo fariisiyay waxa way xanuun aan walaalahayga u danqaday waayo wax fara badan ayaa soo xanuunsaday oo u soo danqaday balse hadda midani mid loo gagsan karo ma ahan qof jirkiisa jeexan hadaad aragtid wallahi dhiig ayaa ku kacaya marka horta naga raali hada intaan kala maqneen asxaabtayda Kenya aad u mahadsantihiin muuqaalada in kisto ay naga yaraadeen balse maanta waxaan go'aansanay in aan waxaan halkan yaalo aan ka hadalno horta soo dhawaada waxa maanta rabaa inaan ka hadlo waxa waaye horta waxa halkan jiro waxa dadka hadda yaalo baarna inaan ka hadalno waxa waaye muuqaalada la soo diray dad fara badan way soo diraan waxyaalo fara badan balse waan ka raali gelinayaa inta aan wax soo direen oo aan jawaab nasiinin farsi iga raali ahada numberkayga WhatsApp-ka igu soo diraan mostly farsi iga raali ahada waxaan in leeyahay iga raali noqda Arabi ilka isqoomaan marka qofku qalad u gali kara maadaama qalad aan galay iga raali ahada bal samaanta waxaan rabaa waxa soo dirtay inaan ka hadlo taasina ma aha mid oo aniga askaga aamusi karo waayo waa xanuun wadanqasho beeladahay waxa way horta gabdhaheena Soomaalida hadda waa aragtay maalin dhaweed Mombasa gabar baa lagu dilay oo meedkeedii banaanka la soo dhigay waxayna ahayd gabar iskuulka dhamaysay oo natiijo wanaagsan oo fiican haysatay waxa loo dilay Allahu a'lam garan mayno balse qofkii dilay waxaan maqlayay in uu maxkamadda saaran yahay oo maxkamadda waraysi la yeelatay waxa rabaa hadda inaan ka sii hadlo waxa way midan hadda taagan oo gabadha laga afduubtay Kamakunji ayadoo dukaankeeda xirtay kadib kaameradana si fiican umaana arag balse waxaan aragnaa indhaheenu waxayna arkeen ayadoo modi iyo hal qof dumar ah waliba in qof gadaal joogo muuqaalka waa inuu tusin doonaa gadaal joogo u baaqayso marka aniga wallahi aad baan uga xumaanay Soomaali saa u nahay aad baan uga xumaanay midaasna waa mid nagu cusub wadamaha kale way ka dhacdaa oo waan aragnay balse dalkani Kenya hadii loo qaasaan Nairobi horta aad nagu cusub tahay marka asxaabta hadal badan inuu sii badinin oo yani uu sii badinin waxa way horta xanuun dadka cudba gabadhan xanuunkeedii baa halkan soo fariisiyay dhamaanteen marka waxaan rabnaa in aan inii sheegno waxa sida looga hortagi karo ama sida qofka cadowga oo maanta dadkeena saan u laaynayo aan uga hortagi karno horta gabdhaheena horta inkastoo madax adag yihiin waxa la dhahay mootadan ha korin mootadii bay kori way isku aamini Kamakunji Soomaali way ku yiriyaan diin la tiriyo waa far ku tiris Kamakunji Soomaalidu aad bay u yartahay marka waxa la rabaa meel ay Soomaali ku yartahay in aadan si taxaddar ama wax yani inaad iska ilaalisid baa loo baahan yahay marka daadan dihin saan rabaan u isticmaal saan rabaan wax u yeelani horta ku musurta galayso waxa la rabaa maskaxda inaad isticmaashid marka saas inkastoo ay madax adag yihiin horta waxa fiican qofka inaad wax ka muuqsid dhowr mar aan arkay gabar moodan raacday si xul lagu sameeyo aniga indhaheygana ku arkay oo aan badbaadiyay laakiin gabdhaha inkastoo ay madax adag yihiin tan tusaalaha u ahaato
in ay mar dambe isku aaminayn meel qof muslim uusan joogin. had gabadhani waxaa dhici kartaa qorsho iyada loo degay inay tahay hooyadeedii walaalkeedii hadda see dareemayaan xilliga see dareemayaan anaga si baan dareemayna ay ka daran. marka sida loo hortagi karo waxaa waaye in aad iska ilaalisid wixii shay oo xun. mooto aad raadisarto gabar dumar haddaad tahay ku xun tahay iska daa mootada meesha hataa hadday fog tahay bar gaari qaado. haddaad gaari qaadin karin oo aa mootada kortay balse mootada mid oo adi isku hubtid miya. horta gabadha nolol iyo geeri midna laguma hayo. waxaan leenahay ilaahay cadowga ha kasoo sii daayo, ilaahay cadowga ha kasoo sii daayo. inkastoo lacag ay sheegteen oo ay dhaheen intaas aan rabnaa lacag 5 milyan baan rabnaa. weliba muuqaalka markaas sii daawday qof baa codka u weynaysaday gabadhana qof xanuunsan mayo hadli karaa ma hadli karo oo jarjaran ma hadli karo. marka gabadhii adi waxaa lagu qasbay luqadii Kiswahiligeena ku hadasho lacag bay rabaan wax bay dhahday waa qof xanuunsan ma hadli kareen. cadowga ilaahay ha kasoo sii daayo, ilaahay ha kasoo sii daayo. mid kale oo waxaa rabada aan niigu darayo waxaa waaye dhowr gabdhood baa maqan. hataa muuqaal kan liisoo diray ila fiirsada. gabar baad calcalaysaa leedahay gabar walaashay baa iga maqan. isla saacadan daqiiqadooyin baa hadda lasoo diray dhowr gabar baa maqan. marka Soomaaliya waa nala soo dhigtay basaan cadowga iskaga difaaci lahayn baa loo baahan yahay. sida dawladda aan ugu xirin lahayn arrintan ee ugu gudagal lahayd baa nagula baahan yahay. marka gabadha ila daawda codkeeda waa kan ee dhageysta. walaalayaal gabar walaashayda iga maqan magaceedii baa la dhahaa saakasee nooga tagtay ilaa hadda waa la laayahay. waan bariya waxaan iga codsanay qofka arkay inuu ila soo cariiro. marka garan mayno qofkii qaaday bas waxa qaaday waa qof cadow ku ah terrorist ma qaaday. marka ilaahay ka soo sidaayo cadowga. mid kale ee mudanaha laga soo dirtay Gaarisa aadan barra ducaale asagana uu ka hadlay bari la dhageysta wuxuu way dhacaan. hadda waxaan warku haynaa inay 3 gabdhood ay maqan yihiin. 2 gabdhood oo ka soo jeedaan xaafadda Isliin iyo gabar kale oo ka soo jeeda xaafadda yiraahdo Kayoon. asbuuci horena gabar ay oo Soomaaliyeed oo Gaaris ayadana oo degan magaalo u dhow magaalada Mombasa oo Mareykaani ayaa sidaa loo waayay. markii dambana meydkeeda meel lagu tareeyo shirkada la jarjaray. arrimaha noocan way dhacaan wadankan maadaama bulshada ay ka dhacaan laakiin bulshada Soomaalida hadda waa shay lagu cusub waana shay hadda walac badan la geliyay labada bilada soo dhaafnay. ilaahay waxaa barinaa inaan hadda si nabad ku soo waxaa ujeedaan waxani waa wax nagu cusub. ninkani waa nin baarlamaanka Garissa County. marka uu ka hadlay wuxuu dhahay dhowr gabdhood baan maqan. anakii baa gabdhaha la yacnay. gabdhihii anakii baa la yacnayo dee akhris bay Nairobi joogaan, qaar way shaqaysadaan, qaar basib bay u joogaan, qaarna sib bay ku nool yihiin. marka insha Allah aadan bare waraysigiisa uu inoo dambeynaa halka dambe kasii daawda. balse aniga waxaan kusoo gabagabeynayaa horta inta maqan ilaahay dib ha noogu soo celiyo. inta dhimatay oona lala yahay ilaahay ha u naxariisto. dee ma dhihi karno maanta nolol baan ku haynaa. dee ilaahay horta wixii nolol lagu hayo ilaahay ha nooga soo furto. cadowga gacantiisa ku jiro ilaahay ha nooga soo furo. inta dhimatana Allah ha u naxariisto. aad u mahadsantihiin. waxaan iniga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. muuqaalka xiga ayaan ku daawan doonaa arrimahan kale. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.